shirkadaha leydhka ee magaalada Boorama ayaa gaadhay heshiis afgarad oo dulucdiisu tahay in lagu tayayo adeega korontada ee ay helaan bulshada ku dhaqan magaalada Boorama. Heshiiskan afgarad oo dhaxmaray shirkadda korontada ee Alog iyo shirkadda leydhka ee Telesom ay magaceeda loo soo gaabiyo TIG ayaa waxa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka socotay Komishinka Tamarta Somaliland, maamulka gobolka Awdal iyo mas'uuliyiinta shirkadda leydhka ee magaalada Boorama. Madashan ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay Cabdiqani Xaaji Abubakar oo ka socday shirkadda korontada ee TIG iyo Idris Xamed Jibriil oo ka socday shirkadda leydhka ee Alog, waxayna ka warbixiyeen heshiiskan afgarad iyo ahmiyadda uu leeyahay. isfahamkii u horeeyay weeyaan marka maanta waxaan jecel lahay inaan dadka u shaacino oo cadeyno in labada shirkadood Alog iyo TIG ay isku darsamayaan hadda kadib oo isfahamka aan wadi doono ilaa intaan dhamayno insha Allah. Marka ka waxa ku xigi doona markaan dhamayno shuruudaha la nooga baahan yahay kaamilka iyo loo dhan markaad ka bacdi insha Allah saasaan u yeelno insha Allah. xafladan waxay daaran tahay isfaham ama MOU ay maanta kala saxeexdeen labada shirkadood ee TIG iyo Alog, taasoo aan ka shaqeynay muddo fara badan sidii labada shirkadood la iskugu dari lahaa, iyadoo isfahamkan uu yahay wadadii ugu horeysay ee aan maanta bilownay. waxaan u soconnaa sida ugu dhaqsaha badan inaan u gudubno technicalkii ama farsamadii iyo heshiiskii dambe, taasoo ay waafaqsan tahay wasaaradda sida ay nafartay ama annaguba aan dan u aragnay in ay dalka aan la qabno oo dalka intiisa badanba uu gobolada ama 6 degmo eeda ah aan annagu ahaan imika aanu nahay shirkadihii ugu dambeeyay ee imika sii midoobaya oo aan ugu dambayno oo laba shirkadood aan nahay. waxa farxad gaar anigoo ku hadlaya afka shirkadda Alog iyo dalada guud ee associationka Somaliland Electricity Association inaan maanta aan dhagax dhignay aasaaskii ay ku midoobi lahaayeen labada shirkadood oo horena uga sii soconayno oo aan markhaatina ay ka yihiin wasaaraddii, hay'addii komishanka, gudoomiyihii gobolka oo maanta halkan nala jooga inaan hawshaasi aan u gunto xidhanay oo muddo badan aanu jeefaynay si aan hawshaasi aanu soo gabagabayno. Cabdirasaaq Maxamed Cumar, gudoomiye ku-xigeenka Komishinka Tamarta Somaliland oo isaguna heshiiskaasi ka hadlay, ayaa soo dhaweeyay heshiiskan waxaana uu tilmaamay xoog baan u soo dhaweynaynaa heshiiskan ay afgaradka ah oo labada shirkadood ay galeen, taasoo wax weyn u taraysa shacabka iyo iyaga laftoodaba. waayo economically marka loo eego dee waxaan harka ama duplicate ama waxaan istaba raacayo dhami waa baayaan waxayna noqonayaan wax weyn oo economically ka lumiyay labada shirkadood laftooda meel isku keenaya oo ay ka yaraanayaan loski iyo wax walba. marka xoog baan u soo dhaweynaynaa xagga shacabka laftiisana wax weyn baa u taraysaa, taasoo u noqonaysa xagga maaragtay wax badqab noqonaya iyo haddii noqoto xagga koska laftiisa wax weyn buu Boorama u taraysaa. waxaanuna ilaahay ka baryaynaa shirkadahan labada shirkadood inay si ay isu afkarteen si fiican isu afkartaan, shirkadaha kale laftoodana aan ku raajaynaynaa ama ku gabaabinaynaa inay noqdaan kuwa sidaas oo kale isu afkartaa. sidoo kale agaasimaha guud ee Komishinka Tamarta Somaliland Maxamed Maxamuud Cabdi Malow oo madasha ka hadlay ayaa tilmaamay in heshiiskan uu guul u yahay tayeynta adeega korontada, waxaana ugu baaqay shirkadaha dhigooga ee magaalada Hargeysa in ay talaabadan mid la mid ah qaadaan. farxad gaar ah inoo tacaawinaan goobjoog iyo marag iyo markhaati aanu ka noqono heshiiskaas afgarad ay caawa halkan ku wada saxeexanayaan shirkadaha bixiya adeega korontada ee magaalada Boorama, Alog iyo TIG. anaga iyo gudoomiyaha gobolku waan ku faraxsanahay caawa inaanu goobjoog ka ahaano Komishanka Tamartu isagoo qaranka uga xil saaran nidaaminta aaga tamarta korontada wadanka iyo ilaalinta macaamiisha iyo maalgashadayaashaba. waxaan soo dhaweynaynaa heshiiskan oo aan rajaynayno inuu qayb ka noqdo horumarka iyo taabagelinta iyo gaadhista higsiga qaranka ee ah korontada loo baahan yahay, koronto la awoodayo iyo koronto badqabtaba. faa'iidooyin badan buu u leeyahay, waanaan soo dhaweynaynaa. waxa ay hal meel iskugu keenayaan maalgelintii ay labada shirkadood mid walba dhinac ay u samayn jirtay, taasoo abuuri doonta in adeegii korontada bixinayna uu xoog sii yeesho ama uu noqdo korontadii loo baahnaa, badqabkiisina
uu sii xoogaysto waxa kale inaga caawinaysaa inuu hoos u dhaco qiimihii kaga bixi jiray ee labadaa shirkadood adeegga isdhinac socda ay bixin jireen horumarka tamarta korontada ee waddanku uu gaadhaa waxay inoo dhaqaajinaysaa dhinaca horumarka iyo barwaaqada marka waan soo dhaweynaynaa heshiis kasta oo lagu gaadhayo higsiga qaranka bulshada reer boorama waxaan ku bishaaraynaynaa aan u ogeysiinaynaa una caddaynaynaa in heshiiskani wanaag iyo khayr iyo adeeg kasii wanaagsankii heli jireen uu u keeni doono haddii aan la yidhaahdo ugu dambeyntii barasaabka gobolka awdal mudane xasan daahir xadi oo isaguna madashan soo xidhay ayaa yidhi farxad weyn bay ii tahay inaan maanta goobjoog ka ahaado MOU-ga is-afgaradka heshiiska bilowga ah ay maanta gaadheen labada shirkadood ee bixiya adeegga tamarta gobolkan gaar ahaan degmada Boorama annagoo ka gobol ahaan maamul ahaan fulinayna siyaasadda ay xukuumadda uu hogaaminaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay ka leedahay tamartu inay sii horumarto iyo siyaasadda wasaaradda u taalla iyo komishanka tamarta ayaan waxaan garanay inaan garab siino heshiiskoogaas oo ku salaysan inay u heshiiyaan si tamartu u midowdo oo xagga dhaqaalahana iyagana wax badani ay u hagaagaan dadweynuhuna ay ka helaan adeeg hufan oo jaban arrin baan ku darsanayaa ka gobol ahaan ka gudoomiye gobol ahaan labada shirkadood midoobay waxaan leeyahay midowgiinu yuunu noqonin ku qiimaha ku sii dalaca adeegga aad u adeegaysaan bulshada waxaan rajaynayaa sidii aan ku heshiinay inaad ka jabisaan oo midowgiinu la mahadiyo maxamed bilibili TV-ga qaranka Boorama.